Soomaalida hadda marka aragtid waxay aad u xiiseeyaan siyaasadda, waxay aad uga warqabaan dadka siyaasadda ku jira Soomaaliya. dhalinyaradii hadda soo koraysana iyaguna dadkii hore hadda si raaci rabaan oo siyaasaddaas unbaa dhagaha lagu hayaa oo baararka lagu fariistaa lagu sheekaystaa 24/7 marka waxbarashadiina xoogaa way laagaraynayaan marka maxaa oran lahayd maxaa kula talin lahayd intaynan horta siyaasadda u galin waddankan qofka degan ee aan aqoon lahayn waxa weeye waxba ma tiid laba amuurood baa waddankan wada Mareykanka adduunyadana waa sidaas inaad amba xoolo abuurto maal aad abuurto oo de la arkayo dhab ah iyo inaad aqoon abuurto waa labada adduunyada waxa wada Mareykan waxa quwadaas iyo waa labadaas way 3600 oo jaamacadood baa Mareykan ku yaal dhaqaalaha adduunyada meel boqolkiiba waxa weeye 25 Mareykanku quwadiisu waa halka way waa laga dad badan yahay waa laga dhul balaaran yahay laakiin wax la quwadii aqoon markay noqoto iyo maal markay noqoto ma jirto militariga quwadiisuna waa labadaas ka imanaya marka qof wax wadan iyo dad aan lahayn aqoon xoolo ma yeeshaan marka labaduna way isku xiran yihiin taasi waa kow marka dadka Soomaalidu inay taafooda saaraan aqoon abuur amba dhaqaale abuur waa labada way labaduna way isku xiran yihiin siyaasadda marka tidaahdo de siyaasaddu waxa weeye waa horta waa laba waxaan anigu idhaaho siyaasadda wasakhda ah ee iska bulaacada ah ee maqaaxiyaha lagaga sheekaysto ee hoosun loo sii socdo taasi siyaasadtaasi maaha waa saqajaan weeye taas siyaasadda kalena waxa weeye ta adduunyadu ay ku dhismayso Mareykan siyaasad baa lagu dhisay oo hamad sare dalcada dhaadheer laga baxayo sidee baynu jaamacadda adduunyada ugu wanaagsan u dhisnaa sidee baynu warshada adduunyada ugu weyn ugu dhisnaa sidee baynu u sameynaa teamka kubadda ugu wanaagsan inay ciyaaraan sidee baynu u sameynaa engineering farsamada xagga technicada ta ugu wanaagsan sidee baynu dimuqraadinimo u sameysanaa constitution leh sidee baynu u sameysanaa madax taqaana sida loo hadlo oo adduunyada loola dhaqmo oo adduunyada loo fahmo siyaasadii waa taa weeye taasi de waa siyaasadda waa guulba taa lagu gaadhaa adduunyada waaweyn taasa lagu dhisay teerna Soomaalidu anay sida ay muuqataa waa siyaasadda bulaacada waa bulaacada lagu jiro wasakhda lagu jiro ee la walaaqanayo mana arkana inaynu bulaacad ku jirno oo aynu walaaqanayno marka labada in la kala saaro weeye dhalinyarada marka anu waxaan kula taliyaa rag iyo dumarba siyaasadda bulaacada dhagaha iyo indhaha ka xidha hawsheedana ha galina waa waste of time laakiin siyaasadda jaranjarooyinka dhaadheer laga baxayo sidee baa loo dhisaa jaamacadda ugu wanaagsan iskuulka ugu wanaagsan dhakhtarka ugu wanaagsan beerta ugu wanaagsan maxaan ku raahayay engineering hawlaha waaweyn ee adduunyada lagu dhisayo cadawga sidee la iskaga celiyaa hawlaha waaweyn taasi waa siyaasad aan laga maarmi karin waayo dad ummad waxa isku xidha oo ummad ka dhigta waxa weeye diin iyo qarannimo de qarannimo lama hayn karayo haddii aan la keenin siyaasad haddaan la keenin laakiin waa inay noqotaa siyaasad xariir ah oo xalaal ah maanta la joogo siyaasadda Soomaaliya cid ka baysa malahan sidee ayaa u aragtaa situation hadda jira maanta ugu dambeysay nin baa xamar lagu dilay oo aan la sheegay hadda internetka arkay ana sidee u aragtaa mustaqbalka inay noqonayso in the future aan waxaan qabaa siyaasadda maanta inay ku jirnaa waa siyaasadda bulaacada amba kuwa dibadda sheekada socotaha noqoto amba waxa waddanka gudihiisa ka soo inkastoo ay jiraan dad badan oo waddanka gudihiisa ku nool oo rag iyo dumar leh oo dadaalaya oo de ma maqlaysid hadda Hargeysa qof caanka lagu dilo hebel lagu dilo ma maqlaysid Hargeysa la isku toogtooganaya ma maqlaysid oo waa degmad degan oo dadkeegii ay fahmeen inay hore u socdaan sidaas gobolka waqooyi bari ee la baxay Puntland degan dadka ay shaqaysanayaan dhibaatooyin badan way jiraan oo dhaqaale darro iyo biyo la'aan iyo electric la'aan laakiin dad socda oo hore u socda laakiin siyaasadda guud ee xamar xandurteedu ay tahay waa tii bulaacad ee hoos u socotay ee wasakhda lahayd marka taas waa nasiib darro sidii looga talaabsanayay in laga tashada waa waajib soo hadda maad garan aniga se waxay la tahay siyaasadda maanta Soomaalidu meel xun ayay maraysaa
Ethiopia oo weligeed dan Soomaaliyeed weligeed iyo aleheed aan shaqo ku lahayn hawsheedu ay ahayd sidee baa Soomaali daciif looga dhigaa ayaa maanta fursad haysata wadankii bay soo gashay ciidamadeedii bay soo gelisay iyada maanta wadankii Soomaalida ka talinaysa soo dhammaad garan marka waxa weeye sidii qoomiyadii loo soo celin lahaa Soomaaliyeed hadhowtana saaxiibnimo iyo derisnimo la sameeyay Ethiopia laakiin qoomiyadii Soomaaliyeed ee madax banaanayd sidii loo soo celin lahaa ee xalaash ahayd sidii loo soo celin lahaa qodobka ugu weyn ee maanta Soomaali haysta taaway ya imtixaanka ugu weyn inuu haysta kaaway ka dibadda jooga iyo gabadha dibadda joogta iyo ka gudaha joogana waa meel looga baxsan karayaa ma jirto marka hawsha sidii looga bixi lahaa cadawga Ethiopia wadankii haystana la iskaga celin lahaa looga saari lahaa wadanka dimuqraadinimo iyo nabadgelyo iyo madax wanaagsan ee loo sameeysan lahaa waxa weeye arinta mustaqbalka waqtiga taagan iyo mustaqbalka Soomaalidu marnaba aanay uga bixi karin la iskama qarin karo haddii taan wax laga qabana siyaasadda bulaacada si socota ee qurunka ah ayuun baynu sii galinaa way sii xumaani uun marka de Soomaali cadcadi ba haysa ya cadcadi ba haysa rag iyo dumarkeegii wixii karti lahaa ee geesinimo lahaa ee aqoon lahaa ee lacag haystay ya ee inuu ididila ku jirtay inay is ursadaan oo maanta wadankoogii ay badbaadiyaan lagama maarmaan weey maxaa noqon lahaa labada waxyaalood oo u horeysa ka bedelay Soomaaliya anigu horta madaxweynena ma doonayo noqdo kartideediina ma lihi ya mana doonayo noqdo aanu hawl kale aan iska haystaayo ka macaantaas laakiin qof caadi oo wadaniyo doonaya wadanka wixii aan ka qaban karo inaan la qabto taad ila diyaar baan u ahay waxa ka qorida wadanka si dhab ah as scholarna waxa weeye lagama maarmaan hadii kale xagee laga helaya aqoonti waa sheekadii maqaaxidun badib u noqonaysa waa siyaasadii aan ku sheegayay ee wasaqada hay'adda bulaacada hayd bay noqonaysa laakiin hadii anigu qof aan arkayo inuu madax noqdo oo la yiraahdo marka maxaad qabanaysa labada shay ee ugu horeeyay qabanaysa maxay noqonaysa horta ta ugu horeeyay qabanaysa waxa weeye adigu waa ina toobad keento waqti xun baa ina haya soo maray waa ina toobad keenta dadkii Soomaalida oo ku dhageysanaya oo ku arkaya hortooda waa ina toobad keentay iyaga Ilaahay waa inuu toobad keenta horta waa koow midka labaad waa inaad ballan ka qaada ya inaad daacadnimadaada iyo waxa la socotana banaanka inaad soo dhigto waa inaad ballan ka qaada soo dhammaad garan waxa inta soo raacaysa waxa weeye constitutionka lagu heshiyo dastuurka lagu heshiyo sida uu u dhigan yahay inaad fuliso waa lagama maarmaan saddexdaa hadii la isku helo toobad keen waa wixiina soo maray inaad ka toobad keento hadii xitaa aanad lu kulahayn midda labaad ballan inaad ka qaadood ugu dhaarato inaad daacadnimo iyo wadaninimo ku shaqaynayso midda saddexaadna dastuurka lagu heshiiyay ee la dejiyay inaad ilaaliso oo muqaddas ka dhigto ya way horta saddexdaas aan ugu horeysin laha waxa soo raaca waxa weeye inaad markaa de la baxdo rag iyo dumar Soomaaliyeed oo karti oo wadanka heshiisiinka iyo dadka isa saamaxa dhaliya oo dib u soo dhiso maxaan ku rahay institutionskii wadanka waa hawlo fara badan kuwaas laakiin anigu saddexda amuurood baan ugu horeysin laha thank you so much aad baa mahadsantahay salaam alaykum